farxadii arooska ee murugada isku bedeshay fiiro gaar ah sheekadan waxay xambaarsan tahay tiiraanyo iyo naxdin waa dhacdo aad u xanuun badan ayna yar yihiin dadka la kulma qadartaan oo kale Allah u naxariistay Aasiya Cabdi ayaa si weyn loogu baahiyay baraha ay bulshada ku kulanto geerideeda kadib geeri xanuun badan oo ku timid iyada iyo xubno ka tirsan qoyskeeda Aasiya waxa ay ku nooleed magaalada Doolow ee gobolka Gado kadib muddo badan oo xiriir wadaag ahaayeen wiil lagu magacaabo Maxamed Xasan Khaliif waxay ugu dambeyn ku heshiiyeen guur macna inay isguursadaan Aasiya oo maalmo fasax ah ku tagtay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxay dib ugu soo noqotay Doolow halka uu meherkoodii si habsami leh ugu dhacay 23kii ee bishii aynu ku soo gudubnay December hase yeeshee xilliga wixii ka dambeeyay waxa farxadii guurka hareereysay murugo iyo tacsi waa 3 toddobaad kaliya waa 3 toddobaad gudahood isla maalmihii uu guurka dhacay gudaheeda waxa geeriyootay Aasiya ayeeyadeed waxa halka ka dhacay tacsi sababtoo ah inay soo gaabtaan maalmihii ama mashxarayntii arooska sababta arooska waxa lagu yaqaanaa maalinta koowaad ilaa maalmo toddobada maalin in la iska mashxaradeeyo ay stiil arooskii uu cusub yahay laakiin markii iyada dhimatay waxa soo gaabtay maalmihii mashxaradeynta ama maalmihii dabaaldega arooska tacsiya kadib Aasiya iyo saygeeda waxay ku heshiiyeen inay soo baxdo oo ay timaado Nairobi waxa ay soo gaartay iskuulkii Mandera halkaas oo loogu diyaariyay tikidkii ay diyaaradda ku raaci lahayd ama ay ku bixi lahayd si ay Nairobi gurigii loogu kireeyay u soo gaarto Maxamed Khaliif oo ah Aasiya saygeeda xilliga uu meher ka dhacay waxa uu ku sugnaa koonfurta Suudaan halkaas oo uu ka shaqeeyay asiga adeeradiis ayaana dhameeyay hawsha guurka iyo doonista gabadha waxa ayna ku balameen Aasiya iyo Maxamed inay Nairobi timaado Aasiya kadibna ay meesha ku aqal galaan Maxamed oo ka hadlay arrinka ayaa waxa uu sheegay wuxuu yiri anigu Aasiya waxa aan kaga soo hormaray Nairobi sababtan wax kale ma ahan si aan aqalka noogu diyaariyo gabadhu waxa safarka la soo gashay habaryarteed oo doonaysay inay Nairobi timaado ayadani balse intaa wixii ka dambeeyay musiibo ayaa dhacday diyaaradii Mandera ay ka soo raaci lahaayeen Aasiya iyo habaryarteed ayaa la sheegay inay dib u dhacday iyadoo la sheegay in maalmahaas diyaaraduhu ay hakad galeen waxay soo go'aansadeen inay gaari iska soo raacaan oo ay soo baxaan waa ayna soo baxeen hase yeeshee amar Allah ayaa dhaxda ku helay oo waxa ay galeen shilku waxa uu ka dhacay Garissa markay ka soo bixin Mandera waxay nabad ku imaadeen Garissa oo ah halka uu shilka ka dhacay oo markii hore xitaa gaarigii ayaa cilad ku timid marka Maxamed iyo Aasiya xitaa waa ay wada hadleen xitaa waxay u wada hadleen si farxad ku jirto sababtoo ah waxa mar dhow dhici raba is aragooda sababtoo uu soo dhow yahay hadda waxay soo maraysaa Garissa Maxamed ayaa sheegay in gabadhu habaryarteeda lagu magacaabo Faadumo oo halkaas ay ku nafuway ama ay ku nabaxday shilka Aasiyana meesha waxa ku soo gaaray dhaawac daran Maxamed ma uusan jecleen Aasiya iyo habaryarteed Faadumo inay ku soo safraan gaari sidoo kale safarka waa uu qatar badnaa wuxuu ugu qanciyay xitaa Maxamed inay Aasiya iska sugaan diyaaradda laakiin ugu dambeyn waxa la isku afgartay in safarka dhulka la soo maro oo gaariga la soo raaco Maxamed ayaa waxa uu leeyahay markii ugu dambeysay waxaan isla hadalnay ku dhawaad muddo 30 daqiiqo oo ay taagnaayeen meel uu gaariga ku cilado markii ay gaariga hagaagay ayay soo baxeen ee halkaas ku macsalaameeyay 12 daqiiqo kadib Maxamed waxa soo wacday Aasiya gabar saaxiibadeeda oo ay isku safar ahaayeen oo aad u ooynaysa waxayna ii sheegtay ayuu yiri inay qadar dhacday Maxamed Khaliif waxa uu sheegay in habaryar Faadumo ama Aasiya habaryarteed ay xaaladeedu aad u daran tahay Aasiyana ay gacan ka go'day isla markaana ay wax gurmad ah aysan haysan Garissa ayaa dib loogu celiyay si ay xaaladoodu halkaas loogu dabiyo saacad kadib ayaa la soo sheegay geerida habaryar Faadumo Aasiyana waxa loo soo cararay magaalada Nairobi markii ay habaryartu geeriyootay waxa xoog la saaray in Aasiya loo wado magaalada Nairobi si ay xaaladeeda dhaqsi loogu dabiyo dhaqaatiirtii waxa ay soo sheegeen in Aasiya ama gabadhii uu madaxa dhiig uga furmay loona baahan yahay in qaliin degdeg ah lagu sameeyo alxamdulillah qaliinkii waa lagu guuleystay maxay kugu taalaa dhaqaatiirtii ayaa haddana waxay soo sheegeen in gabadhu maskaxdeeda iyo ay wadnaheeda uusan isku xiriirsan oo wada shaqeyn karinba يا أركيبة وحالة علوس أي قشي مركل أيو يري محمد قليل محمد أيا وحو دقاتير تكعود سدا إن الله فصحه إنو قالو قلكي قبدا قلينكا ساقوت المامي إنو هبينكي دندل تاقنا قبدا حتى مركو قعان تجير كذا ميلكا ميدا كسار وحو دري ماي قبوب آديات وطران واقي أيا بريي صبحي أيا لقاري نختاركي أيا وحو نوشيغي أيو يري إن قبدو حالة ديدا سي عسلانيسو dhakhtarkii waa uu iska baxay gudihii ayuu galay
xoogaa uu gudaha ku jiray kadib waa uu soo laabtay dhakhtarkii waana xaaladii ugu emergency ama ugu xumeed xoogaa dhakhtarkii markaa ugu soo laabtay wuxuuna ku soo wargeliyay xaalad aad iyo aad u daran xaaladaas oo ah geeri maxamed ayaa sheegay Aasiya intaysa geeriyoon ka hor geedida ayeeyadeed inay aad murugo fara badan ku abuurtay geerida murugadeedana wax kale maysan keenin ee Aasiya waxay aad u jecleed ayeeyadeed isla markaana ay waqti badan ku qaadatay inuu dejiyo Maxamed Aasiya ama maskaxdeeda uu ka bixiyo geerida ama xasuusii hore Aasiya ugu dambeyn Maxamed waxa uu ku amaanay inay ahayd gabar afgaaban oo aad u degan dabeecadii akhlaaqna Ilaahay siiyay waxa uu sheegay xitaa inuu hilmaami waayay hadalay ku tiri intaysan geeriyoon Aasiya Maxamed macnaha safarka intaysan soo galin ka hor ay hadalkan ku tiri waan ogahay inaadan jeclayn safar dhul ah mana rabo inaan sameeyo wax aadan raali ka ahayn adiga ee niyada ii fur Maxamed ayaa waxa uu ku yiri waa idin fasaxay aniga iyadan waa idin furay sidoo kalena waa idin duceeyay Ilaahay idin nabad keeno ugu dambeyn Aasiya waxa lagu aasay magaalada Nairobi ay ku geeriyootay ayada sheekada halkaas ay ku egtahay waxaan halkaan ugu tacsiyeynaa familka iyo qaraabada ay ka geeriyootay Aasiya idinkan waxa idinka codsanayaa inaad u duceysaan Aasiya inuu Ilaahay qabrigeeda u waasiciyo Maxamedna uu qalbigiisa Ilaahay u qaboojiyo halkaan ay muuqaalkeena ku eegayaan intaan kaga kulmayno muuqaalka xiga insha Allah. Assalaamu calaykum.